أربعة يوديه وحيرة سعيد ووحى إعلامي ليس عركة ولا جدران ليس هنا مصرفت أنا ما وحى اسمها ضد يوكي وحوله ضد عقاب والله ما يعيش بيا كان كنت عام قواعد وكل حجري دور شوي كينا ضد وش غيرنا ده قفنا كواسعين ورجينا إن شاء الله إن بتهرج جوتي أنت مقامبا إن قعدت سكسين جنبه سيدنا ضرب كانوا مقابلين محا أنا هي مغضبك وبنت لان أسلايا وكسر بريكتا runtii Puntland waxaan u baahanahay inay aad uga shaqeyso inay noqoto maamul hagaagsan horumarsan qayb ka qaata in dowlad federaal oo xasiloon midna Soomaaliya ku dhasho waxaa iyadana in muuqda Puntland in ay noqoto ama hesho wixii markii la aasaasay dadkeedu waxay doonayeen horumar waxay doonayeen tacliim waxay doonayeen caafimaad waxay doonayeen koboc dhaqaale waxay doonayeen cadaalad waxay doonayeen kala dambeyn iyo nidaam lagu kalsoon yahay nolosha iyadana in midnimada loo aaso wixii ka xun laga soco waa qodobka saddexaad maxaa saldhig ah oo lagu qaban karaa arrimahaas waxaana ii muuqatay in la helo maamul sida uu adduunku u yaqaano dowladnimada maamul wanaag sida uu yaqaano hay-ado sharci ku dhisan qorshe ku dhisan kala dambeyn leh xisaabtan leh in lala xisaabtamo waxaa aada u adkaatay dadka Soomaaliyeed oo weliba Puntland ceeb ku ah in la yiraahdo qofkii meel loo dhiibo waqtigiisa hadda baysan iska daayo arrinta in la bedelay u baahanta waxaan u baahanahay qofku hadduu shaqadiisa ka sii bixi waayo in la yiraahdo waa maasanta iska tag inaan la sugin waa in qawaaniintii waxaa qaban lahaydna dastuurka Puntland bay ku dhigantay marka waxaan u baahanahay sharciga inuu sarreeyo in la dhaqan geliyo dadka haddaysan sharciga dhaqan gelin nin madaxa isagu sharciga isku dhaqan gelin waxaan u baahanahay dowladdu inay noqoto dowlad dadku leeyahay aysan noqon dowlad madaxdu leedahay taasna annagaa ka dhigi karna ma aha qofku meesha fuula intuusan fuulin dhowr shuruuc baa jirta dalka dastuur baa jira dad baa dhigtay process baa lagu soo maray marka waxaan u baahannahay in arrimahaas aad looga wada shaqeeyo